wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay ka qaybgalka siyaasadda haweenka dalka waxaana warbixinta warkan noo soo jeedinaya wariyaheena Cabdullaahi Axmed Kulmiye. awoodsiinta iyo sare u qaadida doorka ka qaybgalka haweenka ee dhanka siyaasadda loo dhan yahay ayaa mid ahmid weyn u leh haweenka Soomaaliyeed oo door muuqda ka qaata horumarka dalka. waxaa kulankan soo agaasintay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Faisal Nuur Faarax oo daafuray kulankan wada tashiga ayaa sharaxay ahmiyadda ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka Soomaaliyeed. sida la ogsoon yahay siyaasadda haweenka waa udubdhaxaadka dowlad kasta ay ku dhaqaaqdo. haddii haweenka aysan qaybaha siyaasadda aysan ka qayb qaadan waa wax kale weeye wax kale ayaa la eegayaa. annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha mar kasta waxaan u taagannahay inaan haweenka awoodda kor u qaadis ku sameyno dhinac kasta ay tahay. agaasimaha waaxda xuquuqul insaanka Axmed Cabdi Cumar iyo agaasimaha waaxda jinsiga Saacdiin Maxamed Nuur ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si isku mid ah u sheegay in wasaaradda haweenka ay mar walba ka shaqeynayso sidii haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen doorka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. wasaaraddu waxay door weyn ka ciyaartay sida haweenka doorkooda kor loogu qaadi lahaa dhinaca siyaasadda iyo ka qaybgalka dhinaca maamulada kala duwan. dadaalkii ay hore u waday mid la mid waaye oo lagu adkeynayo waxqabadka wasaaradda iyo horumarinta wasaaradda dhinaca haweenka. waxaa jira saad ogtihiin siyaasad qaran oo hawshan hadda aan wadno qayb laxaad leh kaga jirta. waa siyaasadda qaran ee genderka oo qayb ka mid ah ay tahay xoojinta ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda dalka. siyaasad oo kaliya ma ahan go'aamada dalka hadday ahaan lahayd private sectorka iyo hadday ahaan lahayd heerka dowladnimada. kasoo qaybgalayaasha kulankan wada tashiga ayaa si isku mid ah isugu raacay in muhiim ay tahay in la dardargeliyo sare u qaadida doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dalka. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.